Guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland oo magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag u yimid dabagalka mashaariicdii ay xukuumaddu ka hirgelisay miisaaniyadda qaranka ee sanadkii 2020 ayaa kormeer iyo dabagal ku tagay sida ay mashaariicdaasi uga hirgaleen magaalada Ceerigaabo waxaana ay tageen madaxtooyada magaalada Ceerigaabo xeer ilaalinta garoonka kubadda cagta kuwaasi oo dhamaantoodba ku jiray miisaaniyaddii 2020 gudoomiyaha dabagalka ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland Xildhibaan Mustafa Axmed Cabdilaahi ayaa ka waramay ujeedka socdaalkooda مشاريعها وأنا ودني شقده هودي أنا ودني بجت كي الدولة دولة تلقى شيء أنا وين كونتراكتي دي سي شركتي كونتراكتورس كاي قاتي مقعيد ودي إنا عندها كسو عرقنا سدي لو قلت تلقى لي فلين إن شاء الله وبحيت أنا أقولها نلو ذاك دونا وحي ربو دي هي سنة وحنكون عمرين دونا عدي وحوي قدتي واجب كسو بحدي عدي بفهم سكيل لو قلت تلقى لي أنا ودنين وحن إن شاء الله يدنا لو ذاك دونا تبيها أقول ما تعلم أنا وتعين ولا يروح عصب وحنوجينا يسوي إنه تبقى قيبكي ومحولي جول كويه إنه يسونك قيب قاطو وحي جول كي السوق على مشاريعه ميزانية الدولة اللي جمع الكليو إنه كنت تلقى إنه سدي لو قلت تلقى إنه فلينه ونقضوا حوي مسؤول وممكن تشيلنا ugu dambeyntiina barasaabka gobolka Sanaag ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaana kamid ahaa hadaladiisii wayna ka go'an tahay dawladahan iyo xukuumadda ahaanba in maxaan ku raahdaa wixii horumarin ah ee gobolada bariga ah maxaan ku raahdaa guud ahaan dalka oo dhan iyo gobolada bariga in la focus gareeyo inay waxaas noqdaan wax raandis leh marka way ka duwan tahay mashaariicii kale ay donors ku bixin jireen tan miisaaniyadda qaranka laga fuliyay miisaaniyadda qaranka ugu filan xukuumadda maanta joogta ugu filan dabagal waayo wixii ay dhistay iyada budgetinkeeda iyo systemkeeda bay soo aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shirkadii dhistayna wax qurux badan baan aragnay anigoon ka hor dhacayn waxaan ku raahdaa guddida reportka guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka oo ah guddida ugu muhiimsan ee la isu kaashan karo in qaranka la wada ilaashado Cabdirasaaq Sugulle MMTV Ceerigaabo.